السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوداش قيمها بدن وسلامتين ملكستو دنود دافيد كجوكتان كسو دواد برامج كين أخبارات كأفلام تورك ودن بي برامج كين داوداش قيمها بدن waxaan kusoo qaadan doonaa dhammaan shirkadaha kala duwan dhankaasi dalka Hindiya haday noqoto Bollywood ama Koonfur Hindiya dhammaan akhbaaradka ugu baahantiin ayaan ka soo qaadan doonaa wararkeena daawadayaasha qiimaha badan intaan gudu gelin barnaamijkeena marka hore kusoo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb aan ku bilaawno qodobkeena koowaad daawadayaasha qiimaha badan jilaaga lagu magacaabo Armaan Kohli oo maanta xabsiga loo taxaabay kadib daawadayaasha qiimaha badan jilaagan gurigiisa waxaa laga helay daroogada loo yaqaan cocaine daawadayaasha qiimaha badan qolyaha ka hortaga muqaadaraadka ee lagu magacaabo NCB ayaa jilaagan Armaan Kohli gurigiisa shalay galab oo sabti ahayd weerar ku qaaday sidaa daraadeed gurigiisa waxaa laga soo helay daawadayaasha qiimaha badan dhowr bac oo cocaine oo darooga midaas oo sababtay markii dambe in maanta axad ah oo xabsi in loo taxaabo daawadayaasha qiimaha badan jilaagan Armaan Kohli ma noqonayso markii ugu horreysay xabsi loo taxaabay maxaa yeelay sanadkii 2018 sidaan oo kale waxaa gurigiisa laga helay 41 dhalo oo qamri ah waliba qamri loo yaqaan nooca whisky sida daraadeed markaasna xabsi ayaa la dhigay daawadayaasha qiimaha badan jilaagan Armaan Kohli wuxuu caan ku ahaa aflaamta sida filimkiisa qaxar oo la sameeyay sanad dolay sunan shati sidoo kale inta badan waxa lagu xasuustaa filimkii Jani Dushman inta badan Soomaalida filimkan u yaqaanaan tobanka actor maskan haddaba daawadayaasha qiimaha badan jilaagan waxaa lagu helay kiis darooga sida daraadeed maanta xabsiga ayaa loo taxaabay daawadayaasha qiimaha badan markaana waxaan qodob niga haynaa ninkii Ram Jaran ahaa daawadayaasha qiimaha badan jilaaga lagu magacaabo Ram Jaran wuxuu soo gabagabay duubista filimkiisa Tarbar R sida daraadeed daawadayaasha qiimaha mashaariicda kale وصحيح ayuu ka shaqo gali doonaa daawadayaasha qiimaha badan hore waxa kula wadaagna jilaaga lagu magacaabo Ram Jaran inuu saxiixay film lagu magacaabo Ram Jaran filimkiisa intaan wali magac loo bixin sidoo kale filimkaas waxa director ka ninka lagu magacaabo Shankar sidoo kale Kiara Advani ayaa ku jirto daawadayaasha qiimaha badan hadda waxa shaac laga qaaday filimkan wali magac loo bixin laakiin hadda loo yar Ram Jaran filimkiisa 15 dubistiis inay bilaaban doonto bisha September soo socota 8deeda sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waa ban India maxaa yeelay Minturi la magaalo ayaa laga daawan doonaa sidoo kale waxa la qiyaasaa miisaanad gaaraysa 150 karoor in lagu qarash gareeyo daawadayaasha qiimaha badan filimkan qolaya iskale waxay rabaan in doorka loo yaqaan negative role inuu dhigo ninka lagu magacaabo Fahad Fasil qof kale ma ahan waa ninka hadda ka soo muuqan doona filimka Allu Arjun ee Pushpa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaa la rajayn doonaa dubista filimka inay bilaaban doonto bisha soo socota September 8 sida hadda shaac laga qaaday bal markaana daawadayaasha qiimaha badan aan soo qaadana filimka lagu magacaabo Saturday Episode Center daytoogiisa maalintiisa labaad ganacsi uu sameeyay la soo daawacay daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa hogaamiye ka actorka lagu magacaabo Sudhir Babu waxaan hore idin kula wadaagay filimka in jamciyaha la soo dhaafay tiyaatar la saaray sidoo kale dheewankiisa ama maalintiisa koowaad inuu soo xareeyay lacag gaarayso 2.15 karoor sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan shalay sabti ganacsi uu sameeyay la soo daawacay wuxuu soo xareeyay filimkan lacag gaaraysa 1.25 karoor total ahaan labadiis maalmood filimkan wuxuu soo xareeyay lacag gaarayso 3.40 karoor daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa la rajayn doonaa daytrigiisa oo maanta oo xadda inuu ganacsi fiican sameyn doono sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkan gobolada ugu fiican uu gadmaya waa gobolada Hyderabad Bangalore Vizag ayuu si fiican ugu gadmaya sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan lagu magacaabo Saturday Episode Center waxa hor yaala shaqo culus maxaa yeelay lacag gaaraysa 8 karoor ay ku iibsadeen qolyaha cajaladaha qaybeen sida daraadeed filimkan waxa laga doonayaa lacagtaas inuu soo celiyo lacag gaaraysa 16 karoor markuu keeno ayuu noqon karaa filim lacagtiisa soo celiyo kabacdi ayuu macaash laga heli karaa sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan Saturday Episode Center hadduu ganacsi fiican sameynayo filimka kale lagu magacaabo filimkii kale lagu magacaabo Jata Fahna Mulu asna filimkaas filim socon doona uma eka maxaa yeelay labadiisa maalmood isku darka wuxuu soo xaray lacag gaaraysa 30 lacag taasoo ka dhigan filimkan daawadayaasha qiimaha badan inuu fadhid noqdo oo laga awood batay sidoo kale lagu tuntay sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkaas kale waxa uu badan tahay inuu barbari doono maxaa yeelay filim hore u socon doona uma eka labadiisa maalmood wuxuu soo xaray wax dhan 30 lacag waxaa lagu dhawaaqay filimka lagu magacaabo Maha Sudaram xir rasmi la daawan doono daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxaa jilayaal ka labada jilaal oo kala magacaabo Sharwananda inka lagu magacaabo Sadat daawadayaasha qiimaha badan filimkan lagu magacaabo Maha Sudaram waxaa lagu dhawaaqay in la daawan doono taariikhda markay ku aasaysan tahay 14 Oktoobar 2021 waana bil kale kadhiman sida daraadeed daawadayaasha qiimaha badan filimkii Tarbar dumeesh ka baxay
tahay feesada loo yaqaan dusheeraha waxa ka faa'iideysan doona filimkan lagu magacaabo Maha Sudaraan waxaan lagu dhawaaqay filimkan 14 Oktoobar in la saari doono tiyaatarada gudaha dalka Hindiya iyo daafaha caalamka sidoo kale filimkan waxa ku xifaaltaman doona labada jilaa Sharwananda iyo ninka lagu magacaabo Saddam waxa kaloo lagu dhawaaqay daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Most Eligible Bachelor waqtiga rasmiga ah la daawan doono daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa hogaamiyalka Aqil Akin iyo gol lagu magacaabo Boja Hejin daawadayaasha qiimaha badan filimkan lagu magacaabo Most Eligible Bachelor waxa la daawan doonaa bisha Oktoobar 8 markay ku beegantahay ayaa la daawan doonaa sida daradeed daawadayaasha qiimaha badan qolaha inta jecel aflaamtu waxay soo dhaweeyeen waqtiga filimkan lagu dhawaaqay maxaa yeelay daawadayaasha qiimaha badan filimkan in badan ugu baaqday sidoo kale filimkan aad loo sugay sida daradeed hadda waxa si rasmi ah loogu dhawaaqay filimkan Most Eligible Bachelor in la daawan doono bisha Oktoobar ee sanadkan markay ku beegantahay 8 ayaa la daawan doonaa filimkan waxa kale hogaamiyalka labada jilaa kala ah Aqil Akin iyo gol lagu magacaabo Boja Hejin ayaa hogaaminaya filimka Most Eligible Bachelor bal markaana daawadayaasha qiimaha badan soo qaadana Today Instrument oo kala aflaamta la daawaday 29 Agoosto 2003 waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Gangajaal daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa hogaamiyalka ahayeen Ajay Devgan iyo gabadh lagu magacaabo Grace Sinha daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaraya 290 tiyaatar ayaa la saaray sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxa lagu qarash galiyay lacag gaaraysa 7.25 karoor cumriyaantiisa filimkan wuxuu soo xaray 10.40 karoor sidoo kale qolyaha cajaladaha qayb filimkan waxay ka heleen 5.34 karoor daawadayaasha qiimaha badan filimkan natiijahan wuxuu noqday film average ayuu noqday maanta oo kale 29 Agoosto 1997 waxa la daawaday filimka lagu magacaabo daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa hogaamiyalka ahaya Sunil Shetty oo Soomaalidu u yaqaanaan balwan sidoo kale waxa ku jirta tirishada Shilba Shetty sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaraya 125 tiyaatar sidoo kale filimkan waxa lagu qarash galiyay lacag gaaraysa 5 karoor daawadayaasha qiimaha badan filimkan cumriyaantiisa wuxuu soo xaray lacag gaaraysa 4.3 karoor taasoo ka dhigtay natiijahan inuu noqdo film flop ah maadaama lacagta lagu qarash galiyay oo in yar dhumiyay natiijahan wuxuu noqday filimkan flop ayuu noqday maanta oo kale 29 Agoosto 2008 waxa la daawaday filimka lagu magacaabo C Company daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa hogaamiyalka ahayeen Mithun Jagabort Tushar Kapoor Anand Balqeer Rajmal Yadaaf daawadayaasha qiimaha badan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaraya 500 oo tiyaatar ayaa laga daawaday sidoo kale filimkan waxa lagu qarash galiyay miisaanad gaaraysa 10 karoor cumriyaantiisana filimkan wuxuu soo xareeyay daawadayaasha qiimaha badan lacag gaaraysa 3 karoor iyo bar taasoo ka dhigtay film disaster film burbur maxaa yeelay qasaare lixaad leh ayaa laga kulmay daawadayaasha qiimaha badan 10 karoor miisaanad ayaa lagu qarash galiyay cumriyaantiisa wuxuu keenay 3 karoor iyo bar ayuu keenay taasoo ka dhigtay inuu filimkan qasaare lixaad leh ay kala kulmaan qolyaha filimkan maalgeliyay maanta oo kale 29 Agoosto 2003 waxa la daawaday daawadayaasha qiimaha badan filimka lagu magacaabo Tada filimkan waxa hogaamiyalka Indra iyo ninka lagu magacaabo Mukesh Khanna daawadayaasha qiimaha badan filimkan kaliya waxa laga daawaday tiyaatar gaaraya 20 tiyaataro filimkan waxa lagu qarash galiyay daawadayaasha qiimaha badan 1.5 karoor ayaa lagu qarash galiyay cumriyaantiisna wuxuu soo xareeyay daawadayaasha qiimaha badan filimkan 20 laga ayuu keenay natiijahan filimkan wuxuu noqday asna mid disaster film burbur ayuu noqday waxa halkaas inoo dhan daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena wararka aflaamta ugu dambeeyeen sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan qodobada barnaamijkan ku soo qaadan qodobka ku soo jiitay comment nagu reeb sidoo kale data markii kugu horeysay aad soo boqonayso channelkeena fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar like waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan muuqaal qurux badan soo sameeyno sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin ka codsanaa in muuqaalkan aad share dhahdaan maxaa yeelay si saaxiib wanaagsan inagoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale aragtidaada comment nagu reeb waxa halkaas inagu dhan barnaamijkeena inta qoqolmeena barnaamij la mid ah waa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh